السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا فاتوش فاميلي سو دوادا channelka aad daawanaysiin waa Faatuush family qofka in la hadlayaa kala day waa Faatuush waa ayadi haddaba maanta saa kor ku soo aragteen waxaan rabaa inaan ka hadlo su'aal isoo weydiiyo tax return 2020 haddii aan buuxin Faatuush maxaan samaynayaa oo aan extension aan codsan haddaba I think qofkaas Snapchat kan kala hadlay laakiin hadda ayaan su'aashu on soo baaray oo kala dhigdhigan hayaa I hope inay daawanaysiin sidoo kale waxaan ka hadlayaa isteediyadii oo soo batay yaa ku soo biiray waa lagu soo biiray 22 maraysa bahashi waa soo batay yaa joojina unemployment-igi yaa joojina sidoo kale plus up maniga su'aal iiga imaanaa ee kan ka jawaab raba haddaba haddaan ugu cusubta intaana barnaamijkeena guda gelin subscribe ka saaro gambaleelkan furo labada waxay ka caawinayaan inaad Faatuush family kala dhumin topic badan baan ka hadlaa oo immigration-ka sida topic-gan oo hadda America ka cusub yani wadamo kasta ka cusub iyo stimulus jaaga inta kaliya ma ahane laakiin America ayaan u xisaaranaa oo kulay iyo ilmaha topic-yadoodii yani wixii dhiirigelina waxa soo dhan baa channel-ka looga hadlaa marka naguma qasaaraysid nagu soo biir subscribe-tan igu caawi gambaleelkan furasigan kugu soo dhac barnaamijku marka aan soo geliyo سؤاله وأكتهن 27 ما 27 معايا فتوسجيا 27 ماي وبش هذا نكون شرنا شنات 27 أيا قدام بيس تكسير تانكي أو ولما هذا قفكي extension سماستي أو درستي وإلى أكتوبر 15 بش تبنات شنو تبين كذا أيوب حسن كلا هذا بقى ضد واحد شراء أنت أسبق عن سمين extension عن سمايسن أنا تاكسي بوحين مركا سيفي عن حاله يعني وعواي سيفي عن ما أنا صباري حال سؤالات اللي سوي دي هذا أيضيو كلا دقيقة بانك جوابي هدي أدميس كرايسي 2020 تاكسي ستيل واد حرين كرتا وحتى أد في الجديد وأنا الحريسة ويب سايت بدك بوحينيسا واد حرينيسا محايا because ونوالو جناحيا هدي العقل بقوله هاي مركا حرينيسي taasoo qadadka qaarna lacag u soo noqoto Soomaa qaarna lacag u soo noqon hadii lacala IRS ee lacag kugu lahaan lahayd tax return-ka markaa xiriis oodan taxigi isla markaa hadda buuxinin penalty ay lagu sameyn karaa waa lagu penalty gareyn karaa penalty waxa waa lagu ganaaxaa lacag baa lagu ganaaxaa marka hadda meesha joogtid taxiga wuu ku dhaaftay penalty way ku imaan kartaa laakiin percentage ka yaraanay lagu penalty gareynaa hadda lagu ganaaxaa iska buuxi hadda iska dhamaystir hadda ha suganin ilaa October 15 ha suganin ilaa taxiga dambe hadda iska buuxi qofka taxiga dambe wuu buuxin karaa laakiin penalty oo bil kasta ganaaxi ayaa kugu soo darmay oo lacag badan baa laga qaadi karaa soo qofkii su'aashaas isoo weydiiyo fadlan taxi return-kaaga buuxso sidoo kale isteediyadii joojinaya unemployment-ga waa lagu soo biiray maanta waxa ku soo biirtay 22 ku noqotay Utah aba ku soo biirtay hadda Utah joogtid waa lagu yaabaa way joojinayaan sidoo kale dawladda ayaa warqad soo saari doonta weekan ama weeka dambe insha Allah warqadda way qorayaan hadda way sameynayaan warqadaas waxa loo soo saarayaa because isteediyadii ayaa faraha ka baxay waskas waan joojin ayaa la dhahayaa because benefit kan waxa loogu talagalay inuu socdo ilaa September marka waxay taagan yihiin yani dawladii Biden farahay ka baxeen dadkan waa la qaban la yani because dawladii ku gacan sareen congress wuxuu rabay ku gacan sareen benefit-ki dadkii loogu talagalay waqtiga ay ka joojinayaan sidoo kale dimuqraadi sanadka uu ka mid yahay Bernie Sanders qofka garanay ayaa wuxuu taagan yahay dawladda waa inaad ganaxdaa oo aysan la fikanin isteediyada waxa ay sameynayaan because wuxuu leeyahay benefit-kan waxa loo ogolaaday dadka because of pandemic dartiisa in ay ka joojiyaan oo dawladda programkeeda ay ka joojiyaan waqtigeedii ayadoo la gaarin ayagoo cadeyn u haynin in dadka shaqada diidayaan wax proof ay u haynin inay ka joojiyaan waa wax aan loo adkeysan karin marka wuxuu taagay Biden iyo dawladdu waa inay tilaabo sharci ka qaadaan isteediyadan joojinaya dadkan lacagtoodii oo loo wadaa lacagtan ilaa ay ka gaarayso waqtiga loogu talagalay inay dhamaadaan marka dagaalkan meeshu aadi doono waxa waaye waa la arki doona because state-ka xorriyad buu leeyahay programka dawladda inuu iska federaalka diido laakiin wixii lagu ganaaxi karaa I don't know because haddii hadhow dhib soo baxo oo dad u imaadaan calaacalayaan dhahan waa shaqadaydii iyo kiradii waxa iskaga bixin jiray ciidahan baa dad dartood lacagta ay joojiyeen buu homeless qofka ku noqday dee waa another program oo lagu qabsan karo
laakiin hadda way ku gacan saareen dowladana waxay soo saaraysaa warqad ay u soo dirayso dadka ay ugu sheegayso ugu explain gareynayso in lacagtan ilaa September 6 loo ogolaaday bisha sagaalaad lixdeeda laakiin uu state-kooda go'aansaday inuu asagu ka joojiyo marka hadda Utah ku soo biirtay 26 June ay joojinaysaa Utah intii hore 21 bay noo maray state-yadii waa inay soo tiriyay Texas baa kamid ah Arizona kamid ahayd Georgia kamid ahayd waa la badnaa Iowa kamid ahayd dariska Missouri baa kamid ahayd Mississippi baa kamid ahayd West Virginia kamid waa la badnaa waa 22 hadda sii maraya ayagoo saddex state kale ay ka bixinayaan Montana iyo maxaa la dhihi jiray Arizona iyo state kale ay wuxuu ka bixinayaa bonuski go back to work bonuskaas wuu bilaaban doonaa insha Allah marka waa la arki doonaa meesha la isla galo كل ويصاب بدنا يعني Republican وضواعي عندي كوسا برت الديمقراطي كنديكيت بس أيضا هذا بونس اللي بحنا مو كنديكيت والديمقراطي ما يشري يعني just بونس بالبحنا مركو حالها استديد وداية ده كان لعقته ده إلا بيش السجالة هداري تحقص بونيسين هدو وهدي له دمعة أنت باكيت كذا حتى لقى شقينا عن employment إن لقص هدرة هدي له دمعة هذا ما هو I don't think إن لقص هدرة because أي كيبه بتشوفين سال لقص هدرة أي كيبه بالعقته وطالة joojinayaan marka kulay dagaalkan over ma ahan muu dhamaanin waa la soconaya insha Allah adigu laakiin state-kaaga iska watch garay Fatuj family ku xirno hadii state-kaaga soo gudbiyaha soo habaaraya aniga ma ahayaa soo habaar sidoo kale plus ab manigi still IRS website-keeda waxa ku qoran inay plus ab maniga dadka u dirayso marka iska sugaha degdeginina hadii aan 2020 taxigaaga la process gareena markii lagu process gareey amba lagu soo raacin ama dib lagaaga soo diray marka isku kulkulaaraysa hadii aad plus ab money leedahay iyo hadii kale waxa aad ku yeelan kartaa waa hadii cunug ku dhasho 2020 oo taxigi aad ku dartay hadda aad buuxinaysay uusan helin stimulus check hadii aad 2019 lacag badan samaysay 2020 income kaaga uu sidii dad ba arkay comment gareena dhaay asaasa kala igu dhacday ma leeyahay yani income kayga badnaa 2019 kana uu yaraaday marka iska sugta insha Allah aniguna wixii news ka kordha waa in la soo gudbinay because asxaab badan ba dhagta u taagaysa بلاس أبمانيك سو أنا جانا أنا ما هالمعمل لكن مركو واحد عصبان هذا اللي إني سوق بينا إن شاء الله توا فاتوا شوفوا مري أو كره سبسكرايب صار برنامجك هدي أتكه عشان أصحاب هذا الله شير جري كم بلاد كنا فرو لايك يكومنت جانا دي يعمل قوة هذا إن شاء الله وتكون هالسنتين مركز صاد وقت يجلسين ويداوتين إنا تاجرتين أنا بنصيد وقرأ يعني إنك ما هاد علينا. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.